guriga gelistiisii toosh ma haysaan waa kan guriga amiirkan gelaynaa waa godkaas halkaasaa laga gelayaa askar baa bilowday jiingadahan iyo ciiddaas carradaasa buu dul saaray bismillaahi raxmaan raxiim waa godka weyn ee beertu laga dul sameeyey ee uu ku dhuuman jiray sidoo kalena geli jiray amiirka guud ee ajaanibta daacish cabdulqaadir muumin afaafka hore ama iridda hore waxaa ku qoran mamnuuc lidukhuul waa mamnuuc in la soo galo macnaha amarkaas waxay u dirayaan xubnaha iyaga ka tirsan ee aan loo ogolayn ama awoodda aan u lahayn inay goobtaan galaan ma aan xubnaha sarsare ina muumin jannaan raadinaya iyo jihaad baan ku jiraa buu leeyahay wuxuuna qotay godka aan idin tusi doono ee intaasi leeg si uu dhaqaalo u sameeyo wuxuuna dabka ku guray wiilal iyo dhalinyaro ajaanib ah ayuu ku guray waa sababta aan kuu leeyahay dhulka yagiibaaba baylaha ah maxaan deegaan kale xoog iyo xeelad u gelinaynaa ummad inaan la minaad joogta madax waddanka madax ka soo noqday baa joogta siyaasiyiin baa joogta saraakiil baa joogta dad inagoo kale ah baa jooga iyagu hadday sidaas rabaan inay ku noolaadaanna ha ku noolaadaan haddii ay soomaali yihiinoo wax iska dhicinayaan ha iska dhacshaan inagu mar dambe yaynaan juhdi iyo dadaal gelin xamar waa sababtaan u leeyahay way reer puntland oo weliba loogu baahan yahay madaxweyne maantay puntland ku mashquula 5 sano kaliya ama 10 sano ee soo socota madaxweyne awoodiisa dadaalkiisa puntland geliyaynu u baahannahay waa sababtaan u leeyahay waa sababta ay u soo baxayso gafaraha dhulkeenna haysta inuu godkaa ku jiray ummadii reer puntland ee gobolka bari deganeed gobolkiiba waa laga soo guuray ummadii laamigiiba isku taxday war laamiga gala maxaa magaalooyinka laga wada dhisay dhulkii saxda ahna waa laga soo cararay yaa ka soo ceyrsaday dhulkan ina muumin baa ka soo ceyrsaday oo ajaanib wata baa ka soo ceyrsaday waa sababta aan kuu leeyahay markay madaxweyne dani shaqa u taalla aadiyan sidoo kale waxaan idin tusi doonaa muuqaalka godkii isaguna halista badnaa ee laga helay difaacii adkaa ee gaatir oodan oo duqeymaha ay uga gaban jireen sida godkaas ay u diyaarsadeen iyo sida kooxdaasi ay ugu tala gashay qorshahooda 10 sano 5 sano ee soo socda inay ummadda reer puntland ku halakeeyaan waa yaabi doonta sida naloogu tashaday iyo sida inagu maalin walba doorashooyinka xamar ka soconaya dowladda federaalkaanu xiriirka u jirnay hablaayaanu xiriirka ugu jirnay ugu mashquulsanayn iyo meel lacag inta puntland laga xaabsado xamar la geeyo lagu cuno aynu ugu mashquulsanayn dhulkeenna inooga fiican ama inooga muhiimsanaynu ku mashquul waa idan tusi doonaa labadaas god caawa hadalkayga waa yaraan doonaa qaybta dambaan waxaan ku darsan doonaa sababaha fududeeyey inay daacishadan u jabaan balse xilligan puntland ku kallifay inay gasho dagaalka waa idinla wadaagi doonaa labadaas codkaas gadaal baan ka dhiganay laakiinse ilaa arka muuqaalka koowaad waa meesha ina muumin uu ku deganaa magaala madaxda shabaab weliba meeshii laga soo gelay fariisinkii laga soo gelay kulli baan idin tusi doonaa ilaa arka bismillaahi raxmaan raxiim saakay meesha aan la wareegnay oo amiirka waatanaa iriddan ayuu ka gaabaa laga galaa waa beertii amiirka hadda waxaan tegaynaa gurigiisii halkaana laga bilaabayaa beer buu ka dhigay waxaasu waa beer godka uu galo yaanyuu buu ku dhex beeray haddaan waxaan bilaabaynaa guriga gelistiisii toosh ma haysaan waa kan guriga amiirkan gelaynaa waa godkaas halkaasaa laga gelayaa askar baa bilowday jiingadahan iyo ciiddaas carradaasa buu dul saaray bismillaahi raxmaan raxiim gurigii baa hoos galay waa godkan waa kana carradaasa warbaa waa ku caburaysaa ka laho ikhyaaray
tuubadan buu ka neefsan jiray tuubooyinkan waa tuubooyinka uu macnaha ka neefsado halka oxygen-ku qaata halkaasi ka baxdaa وكا قد كي بنسيون قد كي بنسيون بسم الله الرحمن الرحيم قد كي بنقصي سعنا وقد كي أميركا الكا إيفي بسم الله هالكا ويرد اللي قلي وماشي الشنات من قد كي ماشي الشنات بسم الله الرحمن الرحيم وقولي مؤمن أميرك قولي قلي جري غياري وطا إذا ماذا براكيسان باوحي كو هلين سحيرا دايسان قربان يدين كو إفنيا واكوان تلي ألواح مصاري توبوينك أكسجينك وكقاتا واكوانا هل كانوا كقري أكسجينك كانوا كقاتا واكوا لبدا توبو وكقاتا جري حرقان باو تلالنا حرقا waa u jeedaan midna waa dab leerkii waa kan leerkii laambada day leerkii dameere wuxuu yahay wuxuu isticmaal jiray godka leerkaas uu isticmaal jiray waa solar waa ka soo furi doonaa hadhow halkaas injineer caalami oo ahaa injineer dalkiisa hadduu ku shaqaysan lahaa waa anfici lahaa توبادي كل شيء كيا البارنا ولا تلفوننا قد كانوا كشين شري وماشي تلفوننا وكستعمال شري واكم وانا ماشي تلفوننا كشين شري يهلكا وأقول ليش أنقذنا قالوا يحبك أنا بركة يسمى معنا متغنى ساكي هلي سيفعان بانو قلنا سيفعان سحر يسمى بكل توبضان كلواتنا أينا أكتشين كو قادن شري aad godkaas waa godkii ina muumin deganaa ee beerta laga dul sameeyay qaabka loo dhisay oxygen-ta biyaha ugu jiray waad u jeedaan magaala madaxda shabaab buu ku yaalay halkaana waa shabaab meeshii laga difaaciyay wallahi baana dhulkaas laga saaray haddaysan shacabka reer Puntland aysan dhaliilin duqeymihii diyaaradaha wallahi oo billahi wallahi gardaabeyla إلا الديارة واحد كلا ينام قبنا يعني مال النمى اللي تغير ولي دفاعي ذي قاتر أذن فالدفاعي قاتر أذن ما ده حدا كوجرتي عنتدا يكون كرسانية وحول بكون كرسانية وي وهالكم ويا أرك كوكو حاجة قدام صوت عشان صوص عروس صوص وقولك كواد قاب كانوا يود سيحي وسوق اللي دونا حاجة كسوق اللي دونا لكن ودسمه كواد طبعا هو ملها أي سيحان جرين أمير ذي تذكر مسؤولين تاع وياي وحقولي هاي صدح دفاع وكلا ذنبه يقول كان هذا حاجة إن كسوت الصيلجح رسيسن وحكسير رسيسن وحلو يقانا دك حنتان يعيد ينيس دفاعه ولو ترجلين كنتالد عليان واي دي كان دفاع كلي هاي قول كلفت الكيس وحبسي لي هاي دفاع كلا وأوتشيدا كان هو دفاع كلا ولو وصي ترجلي إن وحلو يقانو قبل لو قد كتبوا واكن قولكم مركا هالكاس أي كله من جبين كوحة وحلو يقانو خواريستا رجع سيد داعش هل كان هدي قول أمير وها قول كلا نسي جد بينا واي كان وحاول يالي باج أما بيو باج بيها يالكن يالي كان هو الدفاع كله وحكسه حرية دفاعي كواد كيلا بعد كان هو كيسي صدحات أفراد دكتور حاجة مركا ويسوقنا وياهي كرنا والدفاع إلهينا والدبيعية هو بورتي سلكيدي قولك أسوأ قولك لبعض هل كان هو قولك صدحات
halka malaha carruurta seexan jirtay amiir ku-xigeenka laga yaabaa isagana waa qol yar oo kanina waa qol yar oo kale waxaa seexan jiray malaha qolada kale oo amiir xigeenada ah way soo soco markaa sheekadu intaa way ka ballaaran tahay halkan markaa iyaduna waa argadii baan ku tilmaami karnaa waa barandadii guriga ahaan waa meeshii ay xogta ku kala qaadanayeen amiirku marka uu banaanka usoo baxo iyo kooxaha xunka khawaarijta ah oo la socday waa meelaha ay waxa la yidhaahdo aynu odhan karno dee xogta lagu kala qaadan jiray waa meeshii guryaheena caadiga ah guri kasta wuxuu leeyahay qolol iyo barandadii ama daaradii meesha baabuurta ku socon jirtay marka halkan meesha baabuurta ku socon jirtay meeshii lagu leersan jiray halkan ayaa u ahayd intaa yar oo keliya ayaana oxygeenta iyo hawadu kusoo gelaysaa annaga iminka waqtigan aan ku jirno waa hadda ay qoraxda soo baxday abaara waa 6dii iyo barkii ayaan odhan karnaa wax yar ayay qoraxdu markan dhanka bari ka soo baxsan tahay qabow daran ayaa hoos ka jiray markii aan soo fuulinay buurta laakiin hadda halkan intii aan ku jirnay saa u jeedid waa dhididaynaa waxaana halkan ka muuqata waxa weeyaan oxygen la'aanta iyo caburka waana nolosha ay ku noolaayeen dhabta ah oo ay ka doorteen tii wadamadooda guryahooda ay ka soo baxeen balse ciidamada geesiyaasha difaaca Puntland ayaa diiday in marnaba ay ku ladaan kuleel iyo qabow toona guryahayaga dhulkayaga ciidayada iyo godadkayaga way waan soconaynaa halkan kushiinkii bay la tahay kushiinka xaggu sii jiraa waa suuligii qaybtan urtiisa iyo qarbuunkiisa aadi mayno 3 difaac ay kala dambeeyay ayuu si lamid leeyahay halkan markaa waa kan kushiinkii jikadii waa tan u jeedaan halkan ayay wax ku karsan jireen xaabadoodii waa tan 2-3 maalin ayay ka sii maqan yihiin haddaba waaye kan waa baalaha ay ka samayn jireen qaraxyada ay kusoo rakibaan daroniska ay u soo dirayeen ciidamada geesiyaasha difaaca Puntland wax badsante saa u jeedaan waa kuwan baalihii ay laga furay fuuqyadooda dabada uga xirnaa sida uga jeedaan waa maarti kaxayn jirtay xabadda ama fogeyn jirtay waaye haddaba saaxiibayaal iyo daawadayaalba godka noocana kor ku qabo in ka badan buurtu waxay iga sii sarreysaa jawi aad u dheer oo aad u fog si la mid ah waxay u doorteen halkan waxa weeye buur kale ayaa caqabad ku ah oo ka soo horjeeda wajahad ahaan sida halkan idinka muuqata buurtaani waxa ay waxa la yiraahdo difaac u tahay buurtan cid halkan ku jirta markaa diyaaradda ama qof kasta oo isku dayay inuu godkan arko 2 meelood kaliya ayuu ka arki karaa waa inuu intan yar ee bannaan ee hawada ah uu soo maro oo uu arko halkan hadduu soo maro markaa waxaa khatar ah inuu waxyeelo ay gaarsiiyaan difaacani oo uu waxyeelo u gaarsiiyo haddii uu isku dayo inuu soo korana oo uu yimaadana waxyeelo ka soo gaarsiinaya khawaarijta halkan ku jirta waa difaac dabiiciya oo ilaahiyana oo ay doorteen balse saaxiibada dhanka cidka ka saacidaya geesiyaasha ciidamada difaaca Puntland iyo joogta cusleed iyo nabaradii isdaba joogga ahaa iyo howlgalladii sifaynta ah ee ay soo qaadeen khawaarijta ay soo qaadeen ciidamada geesiyaasha difaaca Puntland waxay suurto gelisay godkan sidan muhiimka ugu ahaa iyo aagan difaac in ay joogi kari waayaan adkeysan kari waayaan oo ay ka cararaan isla markaasina ay baneeyaan furintan muhiimka u ah tanina waa guul weyn oo ay gaareen ciidamada geesiyaasha ee difaaca Puntland ina keena buurtiin ka wada deganana marka godkan sida aan horey ku sheegay wuxuu leeyahay wax loo yaqaano
meel aad u sarreysa ayuu ku yaalaa tira ahaan 3 wado ayaa soo gala anagu tii ugu hooseysay ayaan rabnaa maadaama aanan kor u socon inaanu xagga dhulka aanu aadno wadadii hoose ayaanu aadaynaa awgeed kale war khayr baa ka sheekeynaysaa saaxiibaday waxay ii sheegeen inta aanan ka degin buurtan waxa halkan ku yaala god kale oo isaguna ka lambida ama waxba ka yareyn aad iyo aad marka halkaas waa labadaas muuqaal oo aad aragtay dadka noocaas ba dhulkeena inagula noolaa madaxda iyo siyaasiyiinta Puntlandna meelo kale ay ku mashquulsanayeen siyaasiyiinta Puntland indhahooda waa inay Puntland ku soo jeediyaan dhulkeena inaga badan dahabka dhalinyarada reer Puntland ee shaqo la'aanta ah wallahi dhulkaas ku filan tababaraa loo fudaya macdanta iyaga qodanaya dahabkay la soo baxayaan iyaga ka biyo mushtaraya dhulkan waa istiraatiiji dalxiisba laamiya intaynu saarano waliba dhaqaale yar inooga baxayaan baa dadka dalxiisayaasha caalamka lacag looga sameeyaa xeebaheennana waynu adkaysanayna Soomaalida kale iyadu ha isxalliso dhowr iyo 20 sano 30 sano aanu juhdi dadaal gelinay abaal la nooga ma hayaan wax abaal oo ay nooga hayaan ma jiraan wax abaala oo ay nooga hayaan ma jiraan iyagu maanta intaas ku soo gaaray annaga dhulkayagii waa baylaha u noqday sidaan iyaga wanaag iyo Soomaalinimo uga shaqeynay iyagu wanaag iyo Soomaalinimada intii annagu aanu soo gaarsinay ha ka sii wadaan haday iska burburinayaan iyaga u taala waa sababtan u leeyahay Puntland indheheena aynu saarno oo dhulkeenaas aynu ku mashquulno oo halala macaamil adduunka taas waa qodob caawi waxa la joogaa dhaadaar hawlgalka wajigii labaad waa dhamaaday markuu wajigii labaad bilaabanayo oo la joogay Turmazaale baan idin sheegay maalinta dhaadaar la galo wuu soo afjarmaya wajigii labaad guul 75% la xaqiijiyay waxa harsan 25% waan ku kala dhigdhigaya nimanka hadda waa firxad ceelasha boqo iyo miiraale ciidanka dhaadaar jooga go'doominaya ceelka wan gablana way ku dagaalamayaan oo waa kan ugu dambeeya ceelka wan gable way ku dagaalamayaan saddexdaas ceel baa nimanku hadda joogaan boqo